maan xadku inuu xidhmay oo xadku xiran yahay oo qof qori wata aan lagu arki karin gudaha dowladdeegaanka Soomaalida waa amar caawa 12 oo dhaqan galay wax ka dambeeya haddii maanta haday wax ku dhacaan oo u dhinto cidda lagu leeyahay waa tahay bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan meel kasta joogtaan waa salaamaya soo dhawaada waa Abbas Madani muuqaalka si share gare haddii aad nagu cusub tahay degalaha kala duwan ee ku leenahay baraha bulshada fadlan nagu soo biir haday YouTube ka tahay subscribe si haday page ka Facebook ka tahay like tay follow da Twitter ka sidoo kale waa si toos ah naga daawan kartaan xagga TikTok meel walba waa naga dhageysanaysan soo dhawaada laba qodob ayaan barnaamijka caawa ku dul istaagi doona insha Allah arinta koowaad waxaan ka hadlayaa dhacdo fool xun oo ka dhacday magaalada Boorame shalay galabnimadii taasoo loo geystay nin dhalinyaro oo dhul bahanta oo jirdil loo geystay isbitaalka Boorame yaala absolutely qodobkaasi waa faahfaahin doona meesha deegaanka iska leh ee Gadabuursina muuqaalkan gaarsiiyo haday tahay wax garadka aqooyahanka Gadabuursi iyo gaarsiiyo waa qodobka labaad waxaan ka warbixin doonaa dagaaladii ka dhacay Dacwalay wararkii ugu dambeeyay kulamadii shalay ka dhacay Jigjiga iyo arrimahaasi wixii ka soo kordhay awaamiirta la siiyay xubnihii ka socday jabhadda SRM ee tagay Jigjiga qodobkaasna waa faaqidi doonaa qodobka koowaad magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxa shalay galab ka dhacday dhacdo fool xun oo dabcan ugub ah taasi oo lagu la kacay nin dhalinyaro oo ka soo jeeda beesha dhulbahante deegaankaas muddo wax ka baranayay jaamacadda Camuud arday ka ahaa ninka waxa ku dhacday arrin fool xun waan doonayno in ay maqlaan haddii ay ka daahsoon tahay dadka Gadabuursiga ee reer Boorame ninka waxa lagu magacaabaa Cabdullaahi Cismaan Xasan Cabdi Jinni waa nin dhalinyaro waxa uu hadda ku jira isbitaalka weyn ee magaalada Boorame waxa ay ismaan dhaafeen oo afku ka khaldamay niman dhalinyaro oo Gadabuursiya oo anu ma filayn Gadabuursiba aragtidan iyo doorka khawaarijta ee argagixisada ay goonigosadka qaar badan baa maskaxda ku haysta oo maankoodu ka guuxaya ama qaayibay ismaan lahayn ninka dhalinyarada nimankaas afkoodu ka khaldamay waa is af dhaafeen raggu qaar rijaalka waa la yaqaan waa kala tageen waxa la sheegay inay u dalbadeen sirdoonka leexsan u shaqeeya nidaamka khawaarijta nin lagu magacaabo Cabdiqani Diiriye waa Samaroon waana sirdoonka xubnaha ugu soo sareeya gobolka Awdal gaar ahaan Boorame ayuu ku jira ninka ciidan wato ayaa weerar ku qaaday wiilka dhalinyarada Cabdullaahi Cismaan sida la xaqiijiyay waxay u geysteen jirdil ballaaran oo dhinac walba leh ninka dhalinyarada waxa lagu dilayna waa haybhaan weeye waa koow daarood baa tahay waa laba nin reer si qaatuma baa tahay laakiin waxaana tirada ku darsan marka daaroodnimada laga yimaado iyo inuu dadkiisu ay reer si qaatuma yihiin inuu yahay nin ka soo jeeda sidoo kale dowladda deegaanka Soomaalida si arxandara leh bay isugu tageen oo ay u dileen oo isirnacayb ah waa markii ay soo kala tageen raggii ay is afdhaafeen hadal ku khaldamay ayaa ninka aan hore magaciisa u carbaabay Cabdiqani Diiriye sirdoonka laxsana ayaa loo dalbaday ninka dhalinyarada waxa uu hadda ku jira isbitaalka magaalada Boorame ee isbitaalka weyn si arxandara leh ayaa loo dilay waxa la xaqiijiyay inuu daanku jaban yahay meesha loo yaqaano dhagxanaga uu doloolo garka hoostiisana uu dilacsan yahay sanka uu dhiig ka keenayo nabarro waaweyn ay gaareen waxaana gaarsiiyeen niman Gadabuursiya haddaba taa kaliya laguma deyn waxa kaloo loo geystay oo la sameeyay in la yiri waa maxbuus oo isbitaalka uu ku jiro maxbuus buu ku yahay ninka ay sheegay dhaawacyada gaaray ay sheegay afarta koona isbitaalka ciidan baa dul dhigay waxa la yiraahdo maxbuus weeye waayahay intaas waxa weeye Samaroon baan la hadlayaa horta marka koowaad waxaan leeyahay haday dhibaato noqoto oo dhibaato ninka loo geystay cid ay rabaan ha u shaqeeyaan Gadabuursi bay ahaayeen guriga iyo deegaanka loo geysana waa deegaankeeni arintaasi sida ugu dhaqsaha badan hadeedan ka hawlgalin ninka Cabdullaahi
عثمان حسن عبدي جنيبا ليرادا عسبتالك وين يالا hadaydan soo fardaabin oo ay gacanta u gelin dawlad deegaanka xubnaha idii imaan doona ee dawlad deegaanka Soomaalida oo aydan sida ugu dhaqsaha badan arinta aydan uga falcelin hadda waxaanu aqoonsanaanaa ogaanaynaa arkaynaa inaad raali ka tihiin qaybna ka tihiin ugaaska guud ee Samaroon arintan gaadha rabaa dadka wax garadka Gadabuursi baa rabaa arintan gaadho haddaydan ogeyn inaad ogaataan ma rabnaa artaas leedika yeeli maayo leedikana asmici maayo isaaq baa nidaamkooda boor ma ka shaqeeyaayo anagu waxba kama ogin leedika yeeli maayo dadku waa isdhinac yaalaa Gadabuursi guri walba daarada waa joogan magaaladaasi boorama ee jaamacadda Camud ku taalo ee ganacsatada badan iyo ardayda badan daarood ku joogan ha kalifina in leedii baneeyo oo qofkii ganacsi ka haysta oo ganacsigiisa dib loo laabto qofkii ardayna uu jaamacadiisa uu meel kale u bedesho haddaydan dadka deegaankana ku nool ee jaamacadaha deegaankana ku yaala wax ku baranaya haddaydan waxa weeye ammaan siin karin oo amnigooda aydan ka faalo qaadi karin ummadda u bandhiga oo u cadeeya waxa tirawana la haystaa tala gacanta nooguma jirto xorka ma qaban karo ummad la haysto oo la duleeynayo oo gumaysi ku jirta ayaanu idii aqoonsanaanaa haddii aad arinta wax ka qaban weydaan waxa kale oo aad kalifaysaan aragada Buursi oo nidaamka khawaarijta ku jiro oo deegaankiina in aan cid aan idinka ahayn ama reeraha D5 inaana imaan oo aan ku noolaa 24 saac gudahood baan jawaab sugayaa haddii arintaas Gadabuursiyo aad wax ka qaban weydaan oo aad ka dhiidhii weydaan ninka dhalinyarada ah ee jaamacadda Camud wax ka baranayay la isugu tagay ee rag isugu tageen haddaad wax ka qaban weydaan 24 saac gudahood talaabada aan qaadi doono waa ku dhawaaqi doonaa waliba iyada ficliyan aad arkaysaan absolutely ma fiicna xadgudub kuma fiicna anigu qabiil ahaan maanta idin caayi maayo idin haddii la kuuro hal lagu duulo oo dhibaataha loo geysto oran maayo laakiin waxaan ogahay absolutely systemka meesha ka jiraan ogahay iyo bulshadaan ogahay iyo siday isu yihiin baan ogahay marka fariintu waa qaan leeyma gaarsiin waxba kama ogeen cidna laga asbacay ma jirto ninka dhalinyarada ee xabsiga hadeer maxbuuska kuwa isbitaalka ee dhaawac gaaro haddii maanta ama balaayo kale maanta waa nool yahay oo waxa weeye waa nool yahay haddii wax ku dhacaan oo u dhinto cidda lagu leeyahay waa Gadabuursi weeye cidda laga xisaabtamayo waa Gadabuursi arinta ka falcelay oo wali waxa u diraya dadka dhaqanka garadka ee Gadabuursi war hadday jiraan kuwa fara ku tirisa oo idinku jira oo magaciina ku ciyaaraya ka dhiidhii oo ka hadla hawsha ka falcelay ka falcelay intaas Gadabuursi yara aan u diray insha Allah 24 saacadood baan qabtay 24 ka saacadood waxay ku egtahay waqtiga hadda hadlay waqtiga ku egtahay hadlay waqtiga haddii talaabo laga qaadi waayo fariinta iyo qodobada aan diray haddii talaabo laga qaadi waayo laga falcelin waayo warka doobaad maqli doontaa qodobka labaad waxa ka soo kordhay dacwada iyo dhulkii dagaaladu ka dhaceen horta waa la kala adkaaday si rasmi ah ciidanka dawlad deegaanku shalay ma daraad oo dagaal ku dhacay habeennimadii waxay gacanta ku dhigeen dhammaan xadkii oo dhan waad dhageysateen muuqaalada meelaha laga waxa weeye aad daawateen kooxihii nabadiidka ahaa oo yaacay oo cararay oo haddii la kuurayay baladgoodle dhulkaas baneeyay soona galay Hargeysa iyo Gabiley dhulkaas ku soo cararay ugu dambeyn shalay waxa dhacay markaa niman ka socda nidaamkan Hargeysa ka dhisanay khawaarijta baa tagay dawladda federaalkan la kulmana waxay tagay wajaale oo kala qaybsata oo garan kartaan waxa la kulmay taliyaha guud ee ciidanka booliiska ee heer federaal bay la kulmeen oo markaa hawlo shaqo deegaanka ku mareeyay waxay dhaheen dadkayga baa la laayay waana lagu xadgudbay cancer baa loo geystay wuxuu ku yiri oo jawaabta siiyay anoo heer federaal baana deegaanka dawlad buuleeyo waa dawlad deegaanka idinkuna heer dawlad goboleed baa tihiin oo dawladda dhexe Soomaaliya ma tihiin federaalka Itoobiya wuxuu la xiriiraa federaalka Soomaaliya dhigina la xiriira dhigina way waa dawlad deegaanka Soomaalida jijiga loo transfer wana kala federaalka la kulmayna wasiirka madaxtooyada qaabilay
dowlad deegaanka halka shir baa ka dhacay shirkaasi dayda la isu dhiibay dowlad deegaanka xubnaha ka socday wasiirada hal su'aal baa la weydiiyay oo ay ka wareegleeyeen arrimahan dhacay ma waxay ka dhaceen dhul aadinku maamushaan oo Soomaaliya mise waxay ka dhaceen dhul dowlad deegaanka Soomaalida waxay ka dhaceen dowlad deegaanka Soomaalida waaye su'aasha daba ay ka jawaab waayeen maadaba idin sheegaya oo waxay kaga jawaabaan ay garan waayeen waxay dhaheen waa taariikhda markii ugu horeysay Itoobiya in hub laga soo galo lagu dhex dagaalamo dagaalkan uu muddadaas qaato waxaan xog ku haynaa oo xitaa maqalay muuqaalba loo daaray halka hubka ka helayeen halka kooxaha nabadiidka ay argagixisada iska soo urursanayeen muuqaalo maqal iyo muuqaal leh oo dhameystiran oo full information baa loo daaray waxaa loo daaray muuqaalo nimankii argagixisada ahaa oo madaxa duuban oo adeegsanaya weeraro argagixiso walxa qarxa isku xiraya adigu de Itoobiya dowladdu way dowladda full information dhameystiran baa loo daaray laba arrin baa idinka rabnaa waa ku laba qodob inaan mid u tiraadaan ciidankaas waa ciidan argagixisa oo khawaarij oo maanan ogeyn oo qayb ka manihin oo hawlkaas ay ku gaarto iyo inaad tiraahdo ciidanka waa ciidanka iyagu anaga way khalaqas oo naga dhacay waxay isku dayeen inay marmarsiyo ka dhigtaan waa beero waa dadkayagii huuha waxa lagu beelahani dowlad anaga uu deegaankana waa deegaanka Soomaalida anaga dowlad ka iyo dowlad ka batidin nimankaasi horta runta loo sheegay runta iyo xaqiiqada baa la taabsiyay iyagoo aad moodin kan shaati waxa way aamus baa lagu meheriyaa aamusan oo shib ah ayaa ay ka soo baxaan waaye inta qodobada aan soo faray aan sheegin dowlad deegaanka wuxuu baahiyay maqaalkan wuxuu sheegay inay wada xaajood ka yeesheen maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamul goboleedka jabhadda Islam sida sawirkan muuqaalkan aad ka aragtaan qodobadan la xusay qodobadan ayaa loo dhiibay 5 qodob baa la yiri ku bushaaraysta qaata guriga kula laabta qodobka koowaad waxa la yiri mar dambe arrimaha Itoobiya ka socday dowlad deegaanka kama hadli karaan nidaamkiina Islam waa qodobka horta waa la taabsiyo waa qaateen qodobka labaad inay joojiyaan ciidamada ka imaanaya dhinacooda iyo kooxaha nabadiidka ee soo dhinac maraya deegaankooda haday wax way yihiin kuwa hubsitay haday kuwa saanad kala wata saddex inay raali galid buuxda ka bixiyaan eedeymaha aan siyaasiga ahayn ee ay warbaahinta mariyeen taasoo ay hore u bixiyeen oo ay sheegeen in dadkoodii la laayay taasna waxa way mid meesha ku jirta ma way raali galin apologies weyn ka bixiyaan qodobka afraad inay la xisaabtamaan dadka colaadda ka horinaya ama ka abaabulaya deegaanka ay maamulaan nidaamkan argagixisada Islam oo ay talaabo ka qaadaan qodobka ugu dambeeya in dambiilayaasha ka qayb qaata ciidanka ay kooxaha nabadiidka ay dadka shacabka ku laayay dacwalay inay gacanta u soo galiyaan ciidamada dowlad deegaanka si loo maxkamadeeyo oo ay ciidamadu ay gacanta ku dhigaan intaas waa qodob amar dowlo waraaq bu ku yaalaa waa mudaac weey ama miirtaas la soo siiyay iyagoo aamusan oo edab leh bay dib u soo laabtay waxa kaloo idinka ilaaway oo xog Itoobiya dowlad weyn xog meel walba sirdoon u jooga waxa la ogaaday nimankan hadda ordaya rag kamid ah oo saanadii rasaas raadinaya inay tageen Hargeysa meelihii saanadii rasaas taalay iyagoo doonayay taageeraan kooxihii nabadiidka meeshiiba maxay dhiibataba markii bakhaarada la tagay mise waxa ma yaalaanba xabba saanad waa lagu tag waayay ma Muuse qaatay Muuse ku hawlgalay ma hadii la ku leeyahay nimanku ma halkaas bahasha ka joogtay itaal laan bay ka tahay xogtooda waa la siiyay walaaba maqlay muuqaalba mid kale meesha fadhiyo wax shooday marka la kayday codkiisi muuqaalkii xogtii oo dhameystiran waa la taawasi marada ay ku duwatay noqoto dowladda Itoobiya oo dowlad weyn way surtoon leh marka kooxaha nabadiidka xitaa waxyaabo looga adkaan waxa kamid ah marka weerar soo qaadaanba meelaha weerarka ku soo qaadayaanba email kastaba way satellite already wala la socdo dhaqaaq wala la socdo isku soo xoori warkii muxuu ku soo gabagabay
caawa soo ila hadli maayo oo taariikhdu soo maanta 17 maaha December 12 habeenimo caawa ayaa lagu heshiiyay in dhammaan dawladda deegaanka Soomaaliya ay xad ka xidho ciidanka liibi booliska ka howlgala ilaa iyo balad goboleed ilaa iyo Beledhig ilaa iyo Wajaale dhammaan xadku inuu xidhmay oo xadku xiran yahay oo qof qori wata aan lagu arki karin gudaha dawladda deegaanka Soomaalida waa amar caawa 12 ayuu dhaqan galay wixii ka dambeeya qofkii lagu arko soo qorisita xadka dawladda deegaanka waa nabadiid waa argagixiso ciidamaduna amar bay u qabaan waxa kale amar loo siiyay nidaamkan Hargeysa ka dhisan in aanay jiri karin oo ay la xisaabtamaan dadka gudahooda ka abaabulay colaadaha oo ay si rasmi ah gacanta ugu dhigaan taasna iyaguna waa qaateen awaamirtaasi si official ah ay u qaateen ciidamada dawladda deegaanka waxay gacanta ku hayeen 74 dagaalyahan oo kooxaha nabadiidka oo dhamaantood sheegay in jilib ku soo tababarteen oo ay qayb ka ahaayeen waxna la rajaynayaa in laamaha amnigu ay la xisaabtamaan maxkamadaha la horgeeyo maqal iyo muuqaal lagu doo muuqaalo ay ku cadeynayaan halkay ka yimaadeen halkay ku soo tababarteen xubnaha hogaaminayay iyo halka laga soo taakuleynayay intaasna waa xog weeye rasmi ah sida la sheegay waxaan fariinta ugu dambeeyay aan u diray haway beelaha daarood ee degan Hargeyso iyo magaasha la yiraahdo Burco iyo Berbera ku nool hadii ay jirto u mareemay qof daarood damiir leh inuu ku haray deegaankaas dagaalku anytime buu meeshu roo ka dhici karaa war qofkii ganacsado oo daaro sheeganayo reerka arabti daaradka aho you can imagine in uu bahante ama warsangeli oo isaaq ishayaan godobtooda inaan lagu qaaday inaan lagu dilay inaan lagu boobay may hadaa D5 tahay reerka doonta ka hawo waa isu godoona waa isu aanoona absolutely ganacsiga kala baxa hadaa Hargeysa kula haydeen hadaa Burco Berbera kula haydeen kala baxa dhal iyo deegaan nabadgeliya ganacsiga halkaas ku bulaalaya waa garantidu haysteen dhibaato laga waxa weeyay sigaas u gaaray dagaalku waa isbedeli doona meel dhaadheer buu ka dhici doona waana sida saasanta hadda noqoto way qofkii markaa hadda ku hara fariintay gaarsiiyay xaalado degdeg oo amni baa soo kordhay oo soo socda hadeerba warning kan ku siinayno way alaabtaada ka ururso isaga guur meel kasta deegaan kasta oo isaaq leeyahay hadii aad ku sugan tahay hadda bas isaga guur leeyma sheegin waxa lama socdo ma ogeen idkaas ma asama jirto intaasna dadka daaradka u diray insha Allah khayr baa meeyrajeenaya wixii soo kordha oo idin socodsiinaya insha Allah ta'ala